السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا كنتوا بدنا ناتكو على كل انتهابنا وناكسن سو دوادا دمانتي وولاشين هرساق اوفيشال idin hello soo dhawaada channelkan waxaan idin ku hordee kuwa la hadlimayna way casteena gacadeeya suulka la dhaca alla dadii beedankeeda leeyahay sheerta absolute siidaya hal mawduuceeni ama tabigi ahaa عرف يجعل بارت 1 إن هو سوق لنا قيبتي بارت 2 أيام دون إن هدي بيدم كده لي هاي تانك قارنو إن سوق لنا قيبت ربع إن شاء الله سنة دي شيء بوجاد بودري هاي بس قيب باكر دجانا أوكي شغل خالد هذا هاي بروفيسور كاوح وجد جاي مالها خطر ساعة كذب عرضي دي يجا أو اسكو غيبية دور كوحات هدي بيدم كده أي كوح ولبا جهاد خالد وحو كميد اها ardayda ugu mudakarsan jaamacada isla markaana wuxuu kamid ahaa xubnihii fikirka keenay dalxiiska loo baxayo balse Khalid maalintani waxay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale sababtoo ah waxa maalinta ku cusub dareenka xiisaha galiyay laftiisa oo markaa uu baska ka soo degay indhihiisu waxay si toos ah ugu dhaceen hoodo ya salaam oo intay ardaydu dhulka daawanayeen isagu waxa uu ku jeeday gabadha falaadhaha cadceeda iyo laydha macaan jawiga حسلون يلبس كأيسدات absolutely قفكا يو قابيسانو خامتي سير رامتي سودتا دايما دايما عشقك كوكوري قرحون اي هودا ودتو لبساتو قرح بدا بيبركا ودتا iyo farxada ka muuqata ayaa markeliya iskugu beegamay waxa halka ka dhalatay in Khalid uu dareemo xiiso iyo kalgacal saa'id ah maadaama ay hooda tahay gabadh aad loo ilaaliyo waxa maalinta la socotay habaryarteed waxa adkaatay sidii uu Khalid ula kulmi lahaa hoodo waxa gelinkii hore la soo wareegaba waxay gaadhay duhurkii isla markaana waxa dalxiisayaashii lagu wargeliyay inay dhamaantood isugu yimaadaan geed damal ah oo aad u weyn harkiisuna wanaagsan yahay si loo qadeeyo Khalid wuxuu codsaday inuu isagu qaybiyo cuntada absolutely sababtoo ah ninkan markii soo rana mudarab u ahaa qaybta geegeynta heer caalami buu ku yahay absolute kadibna hoodana way ku jirtaa bal qofka jeclad gacantaada cunto ugu dhib yaayo hal caalam laga daaciyarta wuxuu soo gaadhay bartay fadhiday hoodo wuxuuna la kulmay hoodo iyo habaryarteed iyo wiil kamid ah dalxiisayaasha oo gooni u fadhiya isagoo oo qalbiga ka naxay ayaa waxa dhagihiisa ku soo dhacday hoodo ay is waraysanayeen saddexdan qof ah habaryartii wiilka inay ka aqbasho ayaan kula jeclaa habaryartii wiilkii islaantii baa bushkareynaysa deme abadigu u deen leede ka habe Khalid isaga oo ka biyo diiday wiilkan hooda loo sasabayo ayuu cuntadii dhigay markuu kadib uu laabtay ayay
la hadashay hoodo waxayna ku tiri walaal waxba mad cunin nala fadal macnayna nala cun Khalid intuu yiri mahadsanid ayuu iska la cuni karaa meeshii waxba iska dhaqaaq markii la qadeeyay ayaa waxa ay bilaabmeen sheekooyin iyo kaftan goos balse Khalid kama qayb gelin goor ay casarkii tahay ayaa loo soo dareeray dhulkii lagu dalxiisayay balse Khalid kama qayb gelin wuxuuna keligii joogaa baabuurta agtooda dalxiis baa soo galay sawtan maaha nafar baakinka ku qabtay ina wadiya sarka ayaa hadana loo dareeray goobta dalxiiska si loogu noqdo dalxiis isagu iska jooga marka eriyadii baabuurtiisa hoodo dhalintii ka dhex hoodo waxay dhalintii ka dhex weyday Khalid waxaana loo sheegay in Khalid ku sugan yahay abaska dalxiiska hoodo intay habareerteed ku tiri waan soo noqonaya ayay Khalid oo keligii ah u timi Khalid isagoo oo isla baxsan ayay hoodo ku soo jeedisay cod dabacsan Khalid wuxuu farxad iyo naxdin wax madaxa ka fuqay qolof weyn usaayida ka booday iyo ilaa tan iyo cirib qolof weyn madaxii tan iyo cirib ka booday wuuna jirdhacooday waxaana jirdhacoonba kadib waxay hoodo su'aashay maxaa dadka ka reebay isagoo jawaabin ayay haddana weydiisay dhowr su'aalood balse Khalid intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go'aansaday inuu bareerihiisa cadaysto galka seefta kala baxo wuxuuna yiri walaal hoodoy muddo sanad ahba waxaan rabay inaan kula hadlo balse inamay suurtoobin gelin hayeeshee waxaan inamay suurtagelin maanta waan ku sheegayaa inaan adku jecla wow naragaad gabadha waxaad qarinaysaa sanadada u dhib ma dhaayara hadii mooto aday doonto waan ogahay inaad wadanka ka dhoofisay oo waba sii socotaa waxaan kaloo ogahay buuri in reerkiinu doonayaan inaan ku dhisaan wiilkii aad qadada wadaagaysay hase ahaatee waxaan ahay qof ku baholyoobay oo ilaa xad ku jecel balse go'aanka adiga iskale hoodo waxay ku duxay hadallada Khalid iyo galgacalka uu la hoos joogay isla markaana hoodo kumay degdegin go'aankii waxay Khalid soo jeedisay inuu sheekada dib u dhigo oo uu ka qayb qaato dalxiiska Khalid waxa qalbigiisa saaqay dareenka farxadeed wuxuuna ka ogolaaday inuu dalxiiska ka qayb galo miyaa laga diidi karaa markaasoo kale aad iska leedahay u jeesan kartaa ma jirto afarta jaho waa lagu maamulaya rumuudka waa lagu sidaa caashaqa indhaha kaliya markaad eegtaa saaqmaysa dawga sheekha ka boode xijisa beelka Khalid iyo hoodo way wada socdaan socod qabow ayay ku laafiyoonayaan waxayna isweydaarsanayaan kaftan galgacay ka muuqdo iftiin cadceed iyo ceeda oo jihada galbeed ka xigta iyo buuri dhulka cagaaran iyo jawiga xasiloon iyo neecawda macaan ayaa muujiyay shacnigooda waxaan la macaan cadceed galbeed shacnigii khaamaha isku qaabeen oo midba midka kale ayuu hoosta ka eegaya yadba waa lagu soo jiraa midba midka kale hoos ka eegaya waxa ku soo lug daray koox arday ka mid ah oo aad ugu khushuucay siday isugu soo baxeen lamaanaha qaar waa la isla doortaa muqtaqaadna waxa leedahay adariya labada kalifay oo israaciyay qaarna waxa doonaysa bilaa calaga ka hadin cabdo wala laga hadin jambiga hayso aad isugu khushuucay ayay ku soo baxeen markiiba waxay lala boobay sawiro farxad iyo qosol iyo rayn
ka muuqato waa mid saa'id ah. wiilka midda ardayda ayaa si kaftan u yidhi wiil arday kamid ayaa wiil ardayda kamid ah si kaftan u yidhi dalxiiskeena waxaa aad u nuuriyey Khalid iyo Hoodo. inta la qoslay ayay gabadh kalena tiri wacnaan lahayda hadday la maanoobaan allow afka dadka u aqbal oo noqdaan waxay noqdaan hadday la maano noqdaan waxay tamashleeyaanba waxa meel gaaban kaga soo baxday hoodaha bareerta taas habaar bay qabta goob xinjoog baa la dhahaa iyo wiilkii la rabay waxayna dareemeen in labadan xidhiidh ka dhaxay micnihii lamaanaha sida quruxda badan u laafiyoonay dhalinyartina ku shambar waaqleynaysa isla jeclaadeen durdaba taagin waaw fiicnaan lahayd ay lamaana noqdaan. haddaba asxaabteeda quruxda badan naadka u jecel meel kasta kala joogtaan dunida daafiyada xilli kasta waqti kasta idinta waa walaasheen oo idin jecel mar walba boholiyo iyo cishkaan la daray aydan qiyaasi karin xad lahayn idin qabta. inta aynu ku kulmayno baarta tiriya barnaamijyo noocan oo kala waxaan idin leeyahay I love you guys. channelkeena fogay meel u leeyahay geeya idin jecel Allah idin jecel commentiga wixii fikira share tana absolute si jiidinaadeer billahi alayk aad baan idin salaamay asxaabteeda quruxda badan naadka u jecelahay wabillahi tawfiiq.